بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaasheedanu jecelnahay oo guud ahaanba ku soo dhawaada war waxaan idinkaynay dalka gudihiisa iyo daafaha caalamkaba oo dabcan aad kala socotaan shaashada telefishinka caalamiga ee badda cas 24 xarunteeda magaalada Hargeysa haddii raxmaanku raali ka noqdana warka waxa idin la socodsiinaya anigoo Maxamed Cabdilaahi Maxamed Andara qodobada aad maqli doontaan ko ugu doorka roona daawadayaal waxa kamida hogaanka xisbiyada mucaaradka ee wadaniga u cid ayaa waxay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliland uu ka gowsadeegay go'aankii hore uu aqbalay ee gudida dhexdhexaadinta Soomaaliland isla markaana uu si cad u diiday inuu kala diro komishanka doorashooyinka ee muranku ka taagan yahay gudoomiyaha labaad ee xisbiga talada dalka ee kulmiye ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland aanu diidin taladii ergeygii dhexdhexaadinta ha yeeshee uu waayay sharci uu ku kala diro komishanka doorashooyinka madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylicina waxa uu ka qayb galay daahfurka adeeg cusub oo lagu magac daray e-cash madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa u ambabaxay dalka Cumaan wasaaradda beeraha Soomaaliland waxay waxba kama jiraan ku tilmaamtay hadal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurubna waxay kala saxdeen howlgallo lagu xoojinayo nabadda Soomaaliya sidoo kale daawadayaal waxaan idin haynaa xubinteena falanqaynta oo aanu ku soo qaadanayno muranka xoogan ee mar labaad ka dhex qarxay xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland daawadayaal kuwaasi waxay hayeen qaar kamid ah qodobadeena ugu doorka roon le warka imikii haatan isu diyaariya qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan